Bismillahir Rahmanir Rahim. Duhur wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka Shabeellada ee sana waxa kamid ah qarax ismiidaamina qasaarana ka dhashay oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Saraakiil uu ku jiray taliyay ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug oo maanta lagu dilay Gaalkacyo. Faahfaahin kala duwan oo ka soo baxay qarax gaari lagu xiray oo ka dhacay Muqdisho. madaxda ugu sareysa dalka oo kulan ka leh xaaladda adag ee fatahaada ay ka taagan gobolka Hiiraan. xubnaha aqalka sare oo ku baaqay in si degdeg ah loogu gurmado shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobolka Hiiraan. sicir bararka xoogan ee ka taagan Somaliland oo lagu eedeeyay inay qayb ka tahay shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka. dowladda Canada oo ku dhawaaqday in ku dhawaad 20 milyan ee ugu deeqday Soomaaliya. qaramada midoobe oo sheegtay inay dib u bilaabayso soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Kenya. wararka dibadda Shabeelle doornada ee DSana waxaa ka mid ah ku dhawaad 40 dagaalyahan oo ka tirsan kooxda Xuutiyiinta oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Yemen iyo waliba qarax khasaare geystay oo ka dhacay dalka Ciraaq. waa duhurnimo sabdiya taariikhduna ay ku beegan tahay 28 abriil 2018 warkaas oo dhan waxa la diyaara Aniza Cabdullaahi Maxamed Aniza Anfac. aad baad u mahadsan tahay guuleed Cumar Xasan. bismillaahir rahmaanir rahiim. duhur wanaagsan dhageystayaal warkiyo fidsan. qarax xoogan oo khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. dhinaca kale saraakiil uu ku jira taliyihii ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug ayaa maanta lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa warkan Gaalkacyo ka soo diray. qaraxan oo ahaa mid ismiidaamina oo maanta barqadii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lala beegsaday goob aad u mashquul badneed oo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda gobolka Mudug. qaraxa waxaa ku geeriyooday taliyihii ciidanka isku dhafka ee militariga ee gobolka Mudug Master Xoreeye iyo sidoo kale taliyihii qaybta saadka gobolka Mudug Cabdi Qani. waxaana sidoo kale halkaasi ku dhintay 2 askari oo ka mid ahayd ciidamada ilaalinaysa iyo qof ka mid ah dadkii shacabka ee goobta ku sugnaa. waxaana dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid ah dadkii shacabka ee halkaasi ka dhawaa iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaguna goobta ku sugnaa. taliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug ee isku dhafka ee maamulada Galmudug iyo Puntland Korneyl Maxamed Axmed ayaa iga waramay qasaaraha ka dhashay iyo sida ay wax u dhaceen. awal shil baa ka dhacay shilka dhacayna qasaaro badan u geystay haddana hawluhu waa lagu dhex jiraa ciidamadu waa shaqaynayaan hawshaa shilkaasi 5 qof baa ku dhimatay magaras taliyihii ciidanka waxaa ku jira taliyihii ciidanka militariga isku dhafka baa ku jira magaras iyo sargaal kale 2 sargaal baa ku dhimatay shilkaas ku dhimatay saddex qof oo kalena waa ku dhimatay laba ay ciidanka tahay midna shacab yahay. shilka qasaaraha ka dhashay intaa weeye magaras. qaraxa waxaa la baxsaday nin baa isku qarxiyey ciidankaas isagoo oo meel jooga oo hawlgal ay ku jiraan hotel ay yar fariisteen baa lagu qarxiyey. nin baana isku qarxiyey magaras. nin baa isku qarxiyey ninkii meedkiisii meeshuu yaalaa haddii dadka kale ku dhintana waa 5 qof aan kuu sheegay magaras. dhanka kale Korneyl Maxamed Axmed oo sii hadlayay ayaa sheegay ciidamada ammaanku ay hadda ku jiraan howlgal isla markaasna ay faahfaahin gadaal ka bixin doonaan asagoona tacsi u diray dadka ay ka geeriyoodeen saraakiisha iyo askarta iyo dadka shacabka ah. howlgal baan ku jiraa hadda waa kuwa dhamaystiri kara howlgalkii waa socdaa ciidamadooda howlgal bay ku jiraan haddee sabar iyo imaan Allah naga siiyo taliyaha dhintay iyo saraakiisha kale iyo ciidanka dhintaba ilaahay khayr iyo imaan naga siiyo ciidamadana hadda howlgal bay ku jiraan haddii intaa weeye. si kastaba ha ahaatee qaraxani maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ahaa mid gabi ahaanba laga maqlay gudaha magaalada Gaalkacyo kaasi oo dadka qaarkiis ay la soo diristay cabsi xoogan maadaama qaraxa kadib ay rasaas geesaha u rideen ciidamadii goobta ku sugnaa. Cali Xasan Barqadle Cali Gaab warbaahinta Shabeelle Gaalkacyo. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax gaari lagu xiray oo saakay ka dhacay magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdullaahi Cismaan Cadaani. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo saakay ka dhacay nawaaxiga xarunta hay'adda UNICEF ay ku leedahay degmada Waabari ee gobolkan Banaadir.
qaraxa ayaa la sheegay in lagu xidhay gaari nuuca raaxada ah oo uu lahaa shakhsi ka tirsan shaqaalaha dowladda sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo. waxaana lagu soo warramayaa in gaariga keligiisa uu qarxay islamarkaana uu ka badbaaday shakhsigaasi. inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa 2 qof oo mid ka mid ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda ee degmada Waaberi. xiriiro aan la sameyn mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasi ayaa waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan qaraxaasi. qaraxyada ceenkaani oo kale ayaa ku soo laalaabtay gudaha magaalada Muqdisho iyadoona aalaaba mas'uuliyadoodu ay sheegtaan xarakada Al-Shabaab. madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa kulan ka leh xaaladda adag ee fatahaadda ee ka taagan gobolka Hiiraan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xubnaha golaha wasiirada ayaa kulan waxa uga socdaa gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo ay la qaadanayaan guddiga musiibooyinka, hay-adaha ku shaqada leh arrimaha gargaarka, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. kulankan oo haatan ka socda Muqdisho ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda adag ee ka taagan gobolka Hiiraan oo saameyn adag uu ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle. waxaana la filayaa in kulankan uu ka soo bixi doono qodobo ay ka mid yihiin in guddi loo diro gobolkaasi gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si ay u soo qiimeeyaan xaaladda adag ee halkaasi ka taagan. xubnaha aqalka sare ayaa ku baaqay in loo gurmado shacabka ku dhibaataysan gobolka Hiiraan. waryaheena Jaamac Kadiye oo ka qayb galay kulan xildhibaanada aqalka sare ee Muqdisho maanta ay ku yeesheen ayaa goor dhaweyd qadka telefoonka ugu waramay waryaheena Guuleed Cumar Xasan. kulanka guddiga joogtada oo maanta isu gudoominaya gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa arrimo dhowr ah horyaalay guddigaasi ayay falanqeeyeen. guddiga markii uu usoo dhamaaday fadhigaas waxaa warbaahinta uga warbixiyey cali maxamed jaamac xogayaha guud ee golaha aqalka sare. wuxuuna sheegay in ku lafagurayeen kulankaasi maanta sidii xeer hoosaadka wax looga bedeli lahaa kulanka soo socda ee berito ugu horeeya iyo fatahaadda ka taagan magaalada Beledweyne. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa guddiga joogtada ee aqalka sare golaha sare aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu lahaa kalfadhigiisii sagaalaad waxaa lagaga hadlay arrimo muhiim ah ugu muhiimsanay diyaarinta ajendaha berrito 29 bisha oo golaha kulanka guud ee golaha uu dhacayo insha Allah. ajendaha looga hadli doono waxaa kamid ah dib u eegista xeer hoosaadka aqalka oo wax ka bedel lagu samayn doono. ay soo gudbiyey gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka ee aqalka uu soo gudbiyey warbixintaas oo kale berrito imanaya kulanka berrito imanaysa. waxaa laga hadlay arrimaha amniga guud ee guriga golaha iyo tan qarankaba. qodobka saddexaad oo isagana laga hadlay waxay ahayd iyadana lasoo qaaday waxay ahayd masiibada biniaadnimo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle fatahaadda webiyada oo iyadana la yidhaah la go'aansaday in golaha la geeyo haddii la haydno. marka intaas un bay ahayd. waa idinka mahadcelinayaa soo dhaweyd. wuxuu ahaa codkaasi aa maqlaysaan xogayaha joogtada golaha aqalka sare cali maxamed jaamac. dhanka kale waxaa shir jira ku qabtay isla golaha aqalka sare maanta senatare kasoo jeeda maamul goboleedka Hirshabeelle. waxay si wada jir ah carab ugu wada dhufteen ay si isku wada mid ah kaga hadleen dhibaatada masiibada khayrul caadiga ah ee ka dhacday Hirshabeelle in dhibaatadaasi wax laga qabto. dhanka dowladana waxay sheegeen in ilaa iminka ay ka aamusan tahay. waxay kaloo sheegeen in loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed ganacsatada iyo jaaliyada ku dhaqan dalka dibadiisa sidii wax looga qaban lahaa arrinkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan inay la soo gaaraan wax alla waxay awoodaan dadkaas walaalahooda. aad buu mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa waryaheena Jaamac Kadiye oo ka warbixinaya xubnaha aqalka sare oo ku baaqay in loo gurmado shacabka ku dhibaataysan gobolka Hiiraan. sicir bararka xooggan ee ka taagan Somaliland ayaa lagu eedeeyay inay qayb ka tahay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta. sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena Maxamed Axmed Jimcaale.
kadib shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka maamulkaasi Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa uu uga hadlay arrimaha sicir bararka ee ka taagan maamulka Somaliland. Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga wadani ee maamulka Somaliland ayaa xusay in sicir barar ballaaran uu haatan ka jiro deegaanada maamulka Somaliland, taasina sababteeda ay qayb ka tahay shirkadda DP World ee lagu wareejiyay maamulka dekedda Berbera ee Somaliland. waxaana uu xusay sidoo kale in shirkadaha qaadka keena deegaanada Somaliland iyaguna kaalin weyn ay ku leeyihiin sicir bararka ka jira deegaanada Somaliland, kuwaas oo uu xusay in wax akoonna aysan ku lahayn bangiga dhexe ee maamulka Somaliland, isagoo ku eedeeyay maamulka haatan talada haya ee Somaliland in aysan waxba ka qaban dhibaatooyinka shirkadaha qaadka iyo shirkadda DP World ay ku keeneen shacabka deegaanada Somaliland. iyadoo ay yar tahay doolarkii inna soo gelayay ayaa baahidii loo qabay doolarkana ay korodhay. maxaa kordhiyey? waxaa ka mid ah xitaa sida raflayaashu ii sheegeen DP World. DP World waxay adeega ku qaadataa Somaliland shillings, habeenkiina waxay ku bedelataa doolar. sidoo kale qaadka oo dadka inta badan cunto isna waxa lagu iibiyaa Somaliland shilling, habeenkiina waxa lagu bedelaa doolar lacag ka badan 200,000 qaarna nus milyan baa ku qiyaasan habeenkii. labadaas oo qulma ka soo qaadanaya waxay ahayd in xukuumaddu labada ganacsiyaasha qaadka iyo DP World sida la sheegayo midna account kuma leh banka dawladda. marka waxay ahayd in xukuumaddu ku dhiirigeliso in lacagta Somaliland ay dhigtaan oo ay adeegsadaan banka ama xisaaba ka furtaan banka. hadalka gudoomiyaha xisbiga wadani ee maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa ku soo beegmaya iyadoo xisbigaasi wadani uu horay uga soo horjeestay heshiiska maamulka Somaliland uu kala gaaray shirkadda DP World maamulidda dekedda Berbera ee Somaliland, waxaana xisbiga wadani inta badan uu ku celceliyaa in heshiiskaasi uu yahay mid aan waafaqsaneyn shuruucda maamulka Somaliland isla markaana dhibaato ku ah dekedda Berbera oo ah mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee maamulkaasi Somaliland. dowladda Canada ayaa ku dhawaad 20 milyan oo dollarka Mareykanka ugu deeqday dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryaheena Xasan Kaafi Xuseen Axmed. dowladda Canada ayaa lacag gaaraysa 18 milyan oo dollarka Mareykanka ah ugu deeqday dalka Soomaaliya. lacagtani ayaa waxaa la sheegay in loogu talagalay in wax lagu qabto arrimaha gaajada, caafimaadka, cunno yarida iyo masiibooyinka dabiiciga ah sida fatahaadaha iyo abaaraha. wasiirka socdaalka arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Canada Axmed Xuseen oo ku hadlayay afka wasaaradda horumarinta iyo xiriirka caalamiga ee dalkaasi ayaa xusay in lacagtaasi ay tahay deeq gargaar oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed. lacagtani ayaa la sheegay in loo kala qaybin doono hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya bisha casa iyo hay-adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka si dadka saboolka ah kaalmo loo gaarsiiyo. wasiirka ayaa ballan qaaday in dowladda Canada ay sii wadi doonto taageerada iyo caawinta dadka Soomaaliyeed, asagoona carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay ka soo kabsanayso colaadihii iyo khilaafyaadkii soo ragaadiyay dalka Soomaaliya, isla markaana waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin kaalmo dheeraada. deeqdani ayaa ku soo aadaysa xilli bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabto gargaarka bini'aadanimo, maadaama gobollada qaar ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka roobka nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolladaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay dib u bilaabayso soo celinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya. aadan dahir cabdi aadan diyeesh ayaa warkan faahfaahinaya. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in dhawaan ay Soomaaliya dib ugu soo celiyeen 85 ruux oo Soomaaliya kana mid ah qaxootiga ku jira xeryaha Dadaab ee dalka Kenya.
UNHCR ayaa sheegtay in qoysaskaasi ay ka dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaana sarkaal ka tirsan hay'adda uu sheegay in dadkaasi lagu celiyay dalkooda iyaga oo aan la qasbin. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay sii wadi doonaan barnaamijyada dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha Dadaab ee dalka Kenya. UNHCR ayaa xusay in dib u celinta qaxootiga Soomaalida ah ay u adeegsanayaan dhinaca duulimaadka diyaaradaha maadaama weli adag tahay in la adeegsado safarada dhinaca dhulka ah maadaama halkaas ay ka da'een roobab xooggan. Dowladda Kenya ayaa sanadkii 2014 shaacisay in gebi ahaanba la xirayo xeryaha qaxootiga Dadaab oo hooy u ah boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah. Afayeen u hadlay UNHCR ayaa sheegay in tan iyo sanadkii 2014 ay Soomaaliya ku soo celiyeen 76 kun oo qaxooti ah kuwaas oo dib u celintooda ay iska kaashadeen dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo weliba hay'adda UNHCR. halka aad warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee Shabeelle. qarax xoogan ayaa ka dhacay meel ku dhow qunsuliyadda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Irbil ee dalka Ciraaq sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda. sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen 2 ruux halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. ururka Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday magaalada Irbil ee dalka Ciraaq. ugu yaraan 38 dagaalyahan oo ka tirsan kooxaha Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa lagu dilay duqeymo diyaaradaha dagaalka ee uu horkacayo Sacuudiga ay ka geysteen magaalada Sanca. weerarkaasi oo ah mid xoogan ayaa waxaa sidoo kale ku geeriyooday 2 taliye oo ka tirsanaa Xuutiyiinta dalka Yemen sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda Yemen. afayeen u hadlay Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in duqeynta diyaaradeed ay ka dhacday Sanca balse ma uusan sheegin khasaaraha dhinacooda ka soo gaaray weerarkaasi. warkii duhur ood kala socoteen idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho khiyaartana dhageysanaysa xilligan waynaga intaa. cidda warkeena uu sheego waxay mar kale isaga oo maqal qoraal iyo sawiro isugu jira ay dib kaga daalacan kartaa barta internetka aan ku leenahay ah radioshabelle.com.